بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا channelka ساعدك آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارتك كتحن channelka ساعدك آخره. waxay noo soo socotay qiso taxanaha ku saabsan gabar walaasheen oo soo muslimtay dhibaatooyinka ay la kulantay qaybteedii toddobaadna waxay noo mareysay iyadoo markaasi gaajo inuu dhimato qarka u saaran oo kaniisad ku salsaladaysan gudaheeda oo garaac iyo jirdil dhibaato badan lagu hayo aabaheedna ugu dambeyntii ay ka dalbatay inuu cunto soo iibiyo isagana uu ogolaaday cuntona uu uga maqan yahay. haddaba waxaad kusoo dhawaataan qaybtii sideedaad ee qisadaasi. raxmo oo kasii warramaysa dhibaatadii ay la kulantay waxay tiri intuu aabahay oo cuntada iigu maqan yahay waxaa ii soo dhacay taleefon waxaanay soo wacday gabadhii ilmahayga dar ilaahay iigu haysay oo aan si qarsoodi ah maalin ula hadlay ugana warramay wixii igu dhacay. waxay nagu tiri walaashay aniga iyo carruurtiiba gaajo ayaan u dhimanaynaa waxaan siiyana ma hayo darbijiif inaan noqonno ayaan qarka u saarannahay maadaama kirada gurigana nalagu yeeshay. markaasaan ku idhi walaashay carruurta darbijiif iyo iga noqonin masaajidka gee muslimiintan u sheeg ilmo ammaano inay yihiin oo qisada ilmahan u sheeg aniga tayda ayaa ay haysato maalintuu ilaahay dhibka iga saaro inaan idin imaado ayaan rajaynaya ayaan ku dhahay. iyaduna way iga aqbashay khayr Allah siiye haye ay u tiri waana ku soo ducaynaya. anigoo oynaya ayuu nin muslim ah oo meesha aan ku xiranahay dawo u soo doontay ila hadlay oo igu yiri maxaad la ooyeysaa gabadh yahay. anna waxaan ku idhi adiga maxaa tahay muslim ayaan ahay ayuu igu yiri. markaasaan ku idhi su'aal ma ku weydiiyaa haa i weydii ayuu igu yiri. waxaan ku idhi muslimnimada ma dembiba markaas igu yiri maya dembi ma aha haddaba waalidkay gaar ahaan aabbahay intan oo silic ah wuxuu ii marinayaa diinta islaamka oo aan qaatay darteed wax kale oo dembi ah kama gelin jirkayga waxaa nabar ku yaala waad aragtaa ayaan ku idhi. markaasuu ninka muslimkaa igu yidhi hadda ayaan boolis kuugu yeerayaa. anna waxaan ku idhi nin ducaysan ayaa tahaye intaa oo keliya ii samee ayaan ku dhahay. markiiba boolis ayuu ii raadiyey. wax yar kadibna askar boolis oo muslimiin ah ayuu igu yeedhay waxayna isku soo beegmeen aabbahay oo cunto ii soo iibiyey oo i dul taagan iyo aniga oo gacmaha silsilad ugu xiran. markiiba silsiladii ayay iga fureen. aabbahay iyo baadari kale oo meesha joogayna halkii ayaa lagu katiinadeeyey oo lagu xidhay. boolisku markay arkeen xaaladda aan ku suganahay waxay yidhaahdeen war gabadhan waa uur wax ma aragto jirkeyga oo dhanna ushii lagu garaacayay ayaa googoysay. booliskii aad ayay u cadoodeen. aabbahay iyo baadarigii isilcinayeyba xabsi ayaa loo taxaabay anigana dhakhtar ayaa la ii qaaday. dharkii aan xidhnaa iyo dhaawacii jirkeyga si loo kala fuujiyo shaqaalaha isbitaalka ayaa ii qobeeyey sidiina dharka iyo nabarrada jirkeyga ku yaalay uga fujiyey. 15 maalmood anigoo wax dhar ah aan xidhnayn oo dushayda ay ku xidhan tahay maro sidii marakaniicadii loo xidhay ayaan isbitaalka yaalay maadaama dharka uu jirkeyga uu ku dhagayey ilaa ay dhaawacyadu bogsadaan. muslimiinta magaalada Baxardaar oo qisadayda maqlayna way ii soo gurmadeen si fiican ayay ii soo dhaweeyeen. lacag iyo raashin aan ilmaha u geystana way igu dareen. alxamdulillah aniga oo nabad qaba ayaan ilmahayga oo dabrazeyd ku rafaadsanaa nabad uga tagay. lacagihii ay walaalaha muslimiinta i siiyeenna kiradii lagu lahaa uga bixiyey oo aan ku nooleeyey. halkaa ay noo joogto qaybtii sideedaad ee qisadii taxanaayda gabadha walaasheena muslimadda ahayd iyo dhibaatadii ay la kulantay. waa inoo qaybta sagaalaad iyo channelkeena saadka aakhiro insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد